fursad waa daawadayaal gawaarida shireecan ee isku dhacyada shacab iyo ciidan sababay hadalhaynta baraha bulshada ka dhaliyay booq degmada booq ee gobolka Doole dawladda deegaanka Soomaalida taagnaa ilaa iyo xalay ugu dambeynna dhinaca Puntland nabad ku soo galay ciidamada Puntland ay halkaas ugu tageen ay soo galbiyeen baraha bulshada sida weyn looga hadalhayo horta gawaaridan maxay wadeen maxaa lagu ogaaday inay hub wadeen dawladda Puntland war ma ka soo saartay dhinaca Ethiopia maxaa xogo laga hayaa dawladda Ethiopia ma ka hadashay hubkanse ma Puntland buu u socdo dawladda Puntland baa dalbatay ma tabarducaad Ethiopia ay soo dirtay baayo Puntland baa loogu tabarducay oo waxa weey loogu kaalmeeyay oo Ethiopia ugu kaalmaysay ma beelaha Puntland baa soo gatay oo dad shacab ah ayaa hubkan Ethiopia ka soo iibsaday muxuu salka ku ayaa horta hubkan muxuu yahay qodobkeena koobaad ayaa ku dul istaagi doona qodobkeena labaad iibsashada hubka Soomaalidu waxaad moodaa inaysan si fiican u fahmin maadaama dalkeenu cunaqabatayn hub ay saarnayd muddo dheer waqti koobanna laga qaaday hub badanna deegaano kala duwan marar badan uu soo galay qaar la boobay iyo qaar aan la boobinba hubka soo iibsashadiisa yaa sharciyad u leh dastuurku uu ogol yahay ma dawladda federaalka ayaa xaq u leh inay soo iibiso oo maamul goboleedyada hubka iyagu soo iibisa ay u qaybiso ma maamul goboleedyada naftirkoodaaba xaq waxa weey ruqsad xaq u siinaysa jirto iyagaaba xaq u leh inay soo iibsadaan yaa horta xaq u leh inuu hubka soo iibsado maamul goboleedyadu ma soo iibsan karaan hubka iyagoon marin dawladda federaalka ma ka doonan karaan wadamada dariska oo ma ka codsan karaan baahida hubka markaasi ay u qabaan si markaasi looga kaalmeeyo iyagoo aan marin dawladda federaalka dawladda federaalku se ma siisaa maamul goboleedyada hub maadaama maamul goboleedyadu iyagu amnigooda ilaashadaan ciidamo gaar ah ay leeyihiin laanihii amnigo kala duwan ay leeyihiin hubkii ay u baahan yihiin argagixiso ay la dagaalamaan dawladda federaalku maamul goboleedyada hubkay u baahnaayeen ma siisaa mise waa su'aalo u baahan in laga jawaabo la turxaan bixiyo baaritaan dheer oo sameeyay ayaana rabaa iyadana inaan ku iftiimiyo haddii ilaah yidhaahdo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay ilaa iyo xalay hadalhaynta gawaadhi shireecan oo taagnaa degmada booq oo shacabku weliba la sheegay inay damceen inay mar boobaan sidii camud waaqoo kale ayaa ilaa iyo xalay xogteedu ay soo dhacaysay anigu ma duubin mashquulna waan ahaa waana ka gaabsaday ogkaadi baan idhi baasho soo iftiinto hadda waa soo iftiintay ugu dambayn gawaadhidii lama boobin iyaga oo sidoodii u shireecan halkoodii waxa weeye taagan bay ugu dambayn ciidankii Puntland u imaadeen ayna maanta kaxeeyeen oo ay galbiyeen gawaaridan midna iyadu la iskuma haysto hub inay wadeen waa lama furfurin horta gawaarida lama furfurin laakiin hub inay wadeen saameynta ay yeelatay ciidanka markii hore booq keenay kuwa kale lagu wareejiyay ayaa horta cadayn ugu filan in la sii raadiyaa uma baahnaba hub inay wadeen laakiin hubkan baa la isku haystaa ma dad shacab lahaa mise maamulka Puntland baa lahaa haddii dad shacab leeyihiin horta ciidan Puntland uma imaadeen oo ma galbiyeen in haddii markaa la ilaalinayo la leeyahay dawladda gacantooda ku sima mooyeen dawladda Puntland hubkan ma ka hadashay mise kama aysan hadleen dhinaca Ethiopia ma ka hadleen Ethiopia wax wara kama soo saarin Puntlandna wax wara kama soo saarin ciidamada waxa weeye Puntland ayaana galbiyeen hubka meesha ugu imaadeen ilaa iyo hadda daqiiqadaha inala hadlayna wax wara labada dhinacba kama soo bixin taasi waa midaas oo horta waa xogaha la helayaaba aad iyo aad iskaga yar hubka inay ciidan iyo booliska wadeen shacabku ay isku dhaceen qaar la leeyahay waliba dhaawacyaa dadka soo gaar qaarna wayba dhinteen laba qof ku dhintay la leeyahay kadibna waxa weeye ayadoo halkii lagu xakamaynayo ciidanka Puntland ay imaadeen hubka halka ay ka kaxaysteen ay galbiyeen hub Puntland u socday inuu ahaa inta xog dhaafisisan ilaa iyo hadda horta lagama hayo waa qodobka koobaad qodobka labaad maxay tahay baahida Puntland ay u qabto hub inay Ethiopia ka keento hubkanse ma soo iibsatay mise Ethiopia ayaa tabarducaad u siisay horta Puntland iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeya heshiis iskaashi amni ayay soo kala saxiixdeen iyo isdhaxgal bulsho maadaama marka ay soo saxiixdeen wax walbo labada dawladood ay iska kaalmeyn karaan inay iska kaalmeeyaan wax diidaya ma jiro midda labaad Puntland muddo 2 sano iyo waxa
xiriirka dowladda federaalkii iyaga aad buu u xiyay bal ee weliba weerar baaba lagu soo qaaday oo ciidamadeedii baa la kala jabiyey oo dhalinyaradoodii baa la kala jabiyey oo duulaan bay dowladdii federaalka ku haysaa oo puntland ay ku haysaa doonaysaa inay saciid cabdullaahi deni lagu qaado dhaqaalihii ay puntland lahaydna waa la jartay oo villa soomaaliya lagu dhex cunay oo madaxweyne xasan baa cunay maxaa diidaya marka inay aroorto oo puntland ay etoobiya tiraahdo war kaalmeeyo maadaama saaxiiba ahayn hobi siiya iyadoon ka soo iibsanin oo xataa dhaqaale kaga bixin in la siiyaay iyadana wax diidayaay ma jiro taasina horta waa inay bulshada Soomaaliyeed ogsoonaato maanta dalkeenu siyaasad ahaan meeshuu marayo waad aragtaa meeshii ugu liidatay xataa markii la joogay waxa weeye isbaarilaydu ay meelaha joogtay baaba dhaantay baa la dhihi karaaba oo nin walba de xor wahay wuxuu raba soo gadan karay maanta dowladda federaalku koonfur galbeed way ku duushay puntland way ku duushay jubbaland meel loo mara laleeyahay webiyi iyo bad baa xidhay iyo shabaab baa xidhay oo meel loo mara duulaankeeda laleeyahay qoorqoor waad aragteen oo waxaad aragteen dagaal beeleedyaa lagu furay siyaasad ahaan marka xukuumadda hadda jirta ay aad iyo aad bay daciif u tahay u lidataa dalkii bay iska wada hor keentay dadkii oo dhan baa iska hor imaaday shacabkii oo dhan baa la iska hor keenay maamuladii baa la iska hor keenay wixii oo dhan baa iska hortagoo jiq isla ah marka dowladda federaalka maamul goboleedyadu waxba kama helaan hub kama helaan dhaqaale fiican kama helaan wax yar oo dhowr milyan loo tuuraa markay cabaar ololaan oo gubtaan oo ba'aan oo xoog looga soo qaado beesha caalamka lagu dacweeyayo la yiraahdo siya nimanka wixiina markii la soo canaantay bixiya marka labada sano iyo barka maamuladu dhulku la degay xasan sheekh maxamuud oo dhaqaale ahaan iyo kaalmo ahaan iyo wixii la wada lahaay oo dhan buu laqay oo u dajiyay sidaas awgeed marka danta ku khasbaysa maamuladu inay dowladaha jaarka iyo adduunka ay hub u raadsadaan axmed madoobe waa dhaweyd waad ogsoonayeen konton cabdibilo ayuu imaaraadka ka soo qaatay gawaarida cabdibilaha ee qoriga la saaray weliba qorigooda saarayee konton xabo ku dhowaad buu ka soo qaatay kolay ugu gadgatay baan u malaynay anigu hadda gawaari badan maba arkee oo hadday gawaari joogaan ciidanka lagu qalabayn lahaa oo dhulka maqan baa lagu qaban lahaaye iyo inuu madaxtooyada ay ku dhex ilaashanaya garan mayno konton cabdibilo hal mar degada ka soo dejiyey oo qorigiina uu saaran yahay marka sidaas si lamida marka imaaraadka hubku bixinaya Soomaaliya uu siinayo ayay horta Ethiopia ka mid tahay Ethiopia marka hub way haystaa iyadu warshaday leedahay hubka yar yar iyo waxyaabaha yar u sameeya dibadda ka soo dhoofsataa waa dawlad weyn oo qadiimi ah oo ayadu de awood la weeya dagaalabaha ku furnaadeen marka hub waxay haysaa marka maamulada inay siiso wax cilado ku jaban ma jiro maadaama aysan haynin kaalmo kale to meel uga imaata maamul goboleedyadu aysan haysanin marka bulshadan qaada dhigaysane hubaytooya kaantay hubaytooya hadday hub ay siiso dad shacab ah waan la dagaalamayna waan cambaaraynayna ma ogolin dadka shacabka beela kamida in beelbeel loo hubeeyo ma ogolin taas iyadu laakiin inay maamul goboleedyada hub siiso oo sanad ciidan siiso oo ciidan u tababarto oo ciidan u kaalmayso oo saraakiil u tababarto oo xirfado siiso inaga dan inoo tahay hubkii cunaqabatay waa laga qaaday hubkii cunaqabatayntu waa laga qaaday micnaheedu maaha in dadka shacabka laakiin la hubeeyo laakiin waa inay dawladdu ay hubkayna tahiri karto dawladdu waa tuba marka waa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka weey waa in bulshadu marka ay sidaa u ogsoonaato maamul goboleedyada in hub la siiyaa oo dawladuhu ay hub siiyaan oo ciidamada waxa weeye u tababaraan oo saraakiil u tababaraan oo technical siiyaan wax ceeba ma laha xaraana ma aha dastuurkuna waxa weeye ma diidayo sababtoo ah maamul goboleedyadu waa dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka awoodda ugu adag bay ku fadhiyaan shacbiga ugu badan bay maamulaan culayska ugu badan ba haysta amniga waxaa la rabaa deegaanada ay maamulaan oo dhan fiiri hadda dalkeena dhanba muxuu ka kooban yahay dalkeena dhan wuxuu ka kooban yahay Soomaaliya 6 maamul goboleed 7 maamul goboleed wali baan dhahno 7 maamul goboleed iyo wuxuu ka kooban yahay 7 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir Soomaaliya dawladda federaalka xagee maamusha marka iyadu halkee maamusha waxay maamusha madaxtooyada bas ay maamusha wax kale maamusha ma laha marka ma waxa u baahan in hub la siiyo la kaalmeeyo la garab istaago hubka looga qaaday cunaqabataynta waa maamul goboleedyada waa dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waa inaad fahamtaan way marka Puntland hadday hubka soo iibsatay iyo haddii tabarducaad loo siiyayba waa baahi ay qabto oo maanta loo baahan yahay way Puntland culays badan baa haysa shabaab oo dhinac ka waxay leeyahay qoladii la dhaayay Daesh oo buurahan galgalo ku jiro waxa weeye waayigii u dambeeyay amni darro ka waday gobolka bari iyo sidoo kale dawladda federaalka oo duulaankeeda la arkaba xasan sheekh maxamuud duulaankiisu waa cad yahay wax shaki ku jiro iyo wax warwareed waxa weeye waxa weeye shaki ku jira ma aha
وعادي حسن شيخ محمود weerarkiisa iyo dagaalkiisa iyo duulaankiisa waa cadi marka mar haddii marka duulaan intaanan uu ku socdo Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo maamulada lagu soo duulay Hiiraan state iyo dhammaantoodba inay hub Ethiopia ka talbadaan ay dhahan war hubna siiya nadaymiya ama nagu deeqa ama inta naga gada inta hooya inta nagu yeesha caadi weeyaan mas'uuliyadda iyaga saarantahay shacabka waa in amnigooda la ilaaliyo waa in wixii lagu ilaalin lahaa la helo amniga maxaa lagu ilaalinayaa amniga waxaa la rabaa wixii lagu ilaalin lahaa baa la rabaa amniga wixii lagu ilaalin lahaa ayaa la rabaa ma aha in waxa weeye la iska waxa weeye amnigu iska imaanayo amni iskama imaanayo amniga qori caradi buu ku imaanaya juhdi buu ku imaanaya dibashisiin buu ku imaanaya hada waxa weeye socod badan buu ku imaanaya juhdi badan buu ku imaanaya dhaqaale badan oo lagu bixiyo ku imaanaya wax badan buu u baahan yahay marka Puntland hubkaas wadaday doontaba ha ku hesho wadaday doontaba ha ku hesho deyn ha ku hesho deeq ha ku hesho dhaqaale iyadoo leh ha ku soo gadato haddii dawladda Puntland ay hubkaas saxnta noqoto oo iyadu ay soo iibsatay oo sida ciidamadu u galbiyeen dawladda gacantiisa u galo guul bay u tahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxbayaan la qasin oo dadka waxa weeye xasan taageerada waa barado waday hebel buu waday baska waxa weeye Puntland hubkaan soo gadan haytay Ethiopia say hubo ka kansan kartaa Ethiopia dalkay burburinaysa Ethiopia siday rabtaba ha ku waxaysee de wixii ay ku saxan tahay way ku saxan tahay wixii ku khaldan tahay waa iska celinayna haddii ay qabaa'ilada hubayso Ethiopia oo ay hub siiso waa la dagaalamayna waan cambaaraynayna waan iska celinayna laakiin hadday maamul goboleedyada garab istaagto la go'doomiyay xasan sheekh maxamuud uu duulaanka qaawan ku qaaday sida Koonfur Galbeed Puntland maamulkan urdanka Hiiraan state la yiraahdo haddii uu xasan waxa weeye ku duulay inay tabar waxa weeye ay meesha uskan karaan ay uskadaan way ku qasban yihiin wacdiina yahay ma jiro maalin dhaweyd ba Somaliland ba hub tiro badan wajaale uga gudbay ilaa iyo dhowr iyo 10 gaari bay ahayd oo aan muuqaal ka sameeyo waliba la isoo duubay nin saaxiibka yaa jidka markay hayeen buu isoo duubay marka way nala wadaagay marka sidaas si lamida marka ayay maamul goboleedyada sida Somaliland oo kale tahay hubka u siinayso ayay maamuladan kalena xaq ugu leeyihiin in la siiyo oo hubka Ethiopia waxay bixinaysaa ay ka qaataan waa gaal Ilaahay baa kaaga soo qaaday Ilaahay baa nooga soo qaaday maxaa loo diidayaa maxaan ku diidaynaa Ethiopia haday hubna siinayso hana siiso oo waxay naga bixin maamulada hub hasiiso shacabka kula dagaalamayna argagixisada bulshadana ku ilaaliyaan taasi horta waa taa yaa xaq u la imaatay haddii la isku fiican yahay oo hanaan saxa uu jiro oo dawladdu uu kalsoon yahay ay jirto dawladda federaalka warqada lagu soo iibinayo la rabay inay bixiso laakiin dhibaatadii meesha taala waxay tahay dawladda federaalka waxba ma xukunto waxba lama joogto dalkii waxa weeye dagaal bay gelisay inqilaab bay gelisay khilaaf bay gelisay maamul goboleedyadii waxa weeye way cuna qabataysay dhaqaalahoodii oo dhan meel baa lagu shubtay ayadii baa waxa weeye wax kharibtay maamuladu marka xaq bay u leeyihiin oo xil baa ka saaran inay iyadoon dawladda federaalka waxba laga ogeysiinin hubkooda iyo saanadoodaba ay soo iibsadaan taana iyadana waa kaliya way caddahay baan u malaynayaa